waxay ahaayeen kuwa dhaha jacaylku indho ma laha balse qofkii dhahay oradaas been ma uusan sheegin. taasina waxay ahayd wixii ku dhacay Khalid kadib markii uu waajahay gabar uu sanado badan jeclaa, iyada darteedna uu usoo iktishaafay dhul aan caadi ahayn, dhul aan lahayn wax la barbar dhigo, kaasoo la isticmaalo caqliga bedelkii la isticmaali lahaa lacagta. ciddii sanadkaas ugu caqli yaraatana ay noqon doonto cidda la gowrici doono sanadka markii uu dhammaado. waxaan maanta ka sheekeyn doonaa sheekada khiyaaliga ah ee dhulkaas cajiibka ah ee lagu magacaabo dhulkii Zikola. waxayna ku bilaaban doontaa sida tan. magacaygu waa Khalid Xusni, waxaana jiraa 28 sano, waxaana ku noolahay magaalo lagu magacaabo Abu Hofrik oo ku taalo Masar. laakiin nasiib darro maalinkii la ii soo diiday gabartii aan jeclaa, weliba markii 8aad, sababtaas darteed ayaan ogaaday inuu jacaylku yahay mid aanay indho lahayn. sidii caadada ii ahayd, qolkaygii ayaan soo galay anigoo aad u murugaysan, waxaana derbiga iigu dhaganaa 7 warqadood oo ay ku qornaayeen mid walba sababtii la iigu soo diiday gabartaas. waxaana ku daray waraaqadii 8aad aan derbiga ku dhajiyay xilligaas. markaas kadib Khalid waxa uu bilaabay inuu kor jiifto sariirtiisa, dibna uu u milicsado ama uu xasuusto siyaabihii ay isku barteen gabadha. 6 sano ka hor ayay ahayd sanadkiisii u dambeeyey ee jaamacadda, waxayna xilligaas isbarteen gabar lagu magacaabi jiray Muna. waxa ayna ahayd gabadhaas mid degan isla xaafadda uu isagu degan yahay, midaasoo keentay in ay maalinkii kulmaan dhowr jeer, iyaga oo ugu talagalay iyo iyaga oo aan ugu talagelinba. Khalid ayaa dib uga soo laabtay xasuusihiisii, waxa uuna fiiriyey waraaqadii u dambeysay oo uu derbiga ku dhajiyey oona ku qornayd sababtaas darteed ayuu igu soo diiday aabihii Muna ee waalnaa. mar walba oon maqlo kelimada weli waxa igu soo dhici jiray aabbaha Muna. weligeyna ma aan dadka magaalada oo dhan ayaaba u arkayay sida qof waalan oo kaleeto. maxay tahay sababta Khalid loogu diiday gabadha? kadib markii uu Khalid dhameeyey jaamacadda ayuu u tagay aabihii Muna si uu gabadhiisa uga doonto ama uu u soo siiyo, balse aabihii Muna ayaa Khalid ku yidhi, maxaad soo shaqaysatay, maxaad qabsatay oo aan gabadheeda kugu guuriyaa oo aad dadka looga duwan tahay? Khalid xilligaas waa uu isbedelay, waa uuna naxay, wuxuuna la kulmay su'aal uusan markii hore ku fikirin in la weydiin doono. wuxuuna yidhi, aniga sanadkii hore ayaan dhameeyey jaamacadda, weliba kulliyadda ganacsiga, waxaana hadda qorsheynayay inaan bilaabo shaqotii ugu wanaagsaneyd. mar dhow ayaan rajeynaya inaan bilaabo. waxaana la noolahay aniga xilligan la joogo awowgay, waalidiinteeduna waxay dhinteen aniga oo yar. aabihii ayaa kasoo dhex galay hadalka, waxauna ku yidhi, sugsug, ilaa hadda imaadan sheegin wax aad faca ama dadka kale aad dheer tahay, soo muu malaynaa inaad gabarteeda u qalantid. Khalid waagii ayaa ku bariyey, waxaana sidaas loogu soo diiday markii koowaad gabadhii uu jeclaa. markaas Khalid wuxuu iska dhaadhacsiiyey in gabadha loogu diiday shaqo la'aan awgeed, balse midaas way ka duwaneyd. Khalid shaqo ayuu soo helay muddo kadib, waxauna isla markii uu shaqada helayba uu soo aaday dhankii iyo gabadhii uu jeclaa aabaheed. wuxuuna isla sidii horeeto oo kaleeto u weydiistay inuu gabadhiisa siiyo, balse aabihii waxa uu dib ugu soo celiyey isla hadalkii horeeto oo ahaa, maxaad faca uga duwan tahay, maxaad dadka kala dheer tahay oo aan gabadheeda kugu siiyaa. hadalkaas ayuuna ahaa hadalkii 8 jeer Khalid loogu soo diiday gabadhii uu jeclaa. Khalid markii ugu dambeysay aad ayuu carooday, waxauna ku yidhi, yaad rabtaa inaad gabadhaada u guurisid? waxaad rabtaa qof Superman ah inaad siisid? ii sheeg, sidee ku noqon karaa Supermankaas aad adiga raadinaysid? aniga waan guursanayaa iyada. dadkoo dhan way ogaayeen in aabaheed uusan u rabin nin iska caadi ah, nin ciyaalka xaafadda ah ama nin magaalka la degan, balse yuu yahay ninkaas Supermanka ah ee guursan doona Muna. daba Khalid ma noqon doonaa ninkaas? Khalid oo aad uga murugaysan arrinkaas ayaa waxa u soo gelay awowgiis, kuna yidhi, Khalid saan maad iska bedeshid, sana xalquuma noqoto, isbedel waa inaad samaysaa Khalid. Khalid ayaana yidhi, awowe, aniga ma awoodo inaan iyada ku arko qof kaleeto, aabaheedna ma rabo inuu aniga isiiyo. Khalid awowgiis ayaana ku yidhi, ma waxaad rabtaa inay sidaa gacmaha iskugu kaa dul saarnaadaan oo aad sidaa markasta u murugaysnaatid? Khalid ayaana ku jawaabay, ma jirto wax kale oo aan samayn karo oo aanan ahayn inaan indhaha ka fiirsado oo keliya. awowihii inta uu dhowla cadeeyey ayuu yidhi, haddayba sidaas tahay waxaa kuu fiican inaad godka geshid. Khalid wuu yaabay, wuxuuna yidhi, awowe, godkan aad ka hadlaysid soo maahan godkii aad yaraanteedii igaga sheekayn jirtay, weliba inaad adiga hore u gashay? awowga ayaa yidhi, haa, waan xasuustaa. xilligaas waxaan ahayn 4 saaxiibo ah oo aad u dhaqdhaqaaq badan, xilna inay waxyaabo cusub sameeyaan. godkaasna waa naloo sheegay inuusan ahayn god caadi ah oo aysan cid walba geli karin, balse anaka waxaan ahayn dad aad u dhaga adag, dhig uma aanan dhigin hadalkaas.
habeenada ka mid ah ayaana soo raacnay afartayni waxaana soo aadnay dankii iyo godka waxuuna watay mid kasta oo inaga naga mid ah hal xabo oo faynus ah taasoo uu rabay cidnin walba inuu iftiinsado xilliga mugdiga ah waxaana soo galnay godkii markii aan gudaha u soo galnay mar walba oo aan tallaabo hoos soo qaadnay waxaan dareemaynay inuu naqasku yahay mid aad u sii yaraanayo ilaa ay hal mar faynusihii ay naga wada dameen dhammaanteen hal mar ayaan naxnay waxaana bilaabnay inaan gadaal u soo cararno intii aan soo carari karnay nasiib wanaag waan soo cararnay waxaana dib ugu soo laabanay magaaladeedii godkii sidii ayaa nooga soo baxnay oo waxaan noqonay dad nasiib badan oo dib uga soo laabtay godkii Khalid habeenkii oo idil ma uusan seexanin waxaana ka dhex guuxayay wixii uu awowgiis uga sheekeeyey waxauna ka fikirayay warqadihii derbiga ku dhaganaa oo ahaa sababta uu aabihii Muna ugu diiday gabadhiisa oona ahayd inuu noqdo Khalid qof ka duwan dadka kaleeto wuxuuna Khalid meeshaas ka arkay fursad ah ka duwanaanshaha dadka kaleeto oo ah inuu godkaas galo waxna ka soo ogaado hadii ay kanzi ama keed ay yihiin uu soo qaato ama uu noqdo qof ka duwan dadka kaleeto oo soo dhaqaaqay waxa uu gacanta ku soo qabtay sawirkii Muna isagoo dhahayo waan galayaa godkaas waliba jacaylkaaga dartiis wixii dhacayna ha dhaco markii uu Khalid hadaladaas ku sheekeysanayay wuxuu u haystay inuu kaligiis yahay balse awowgiis ayaa ahaa mid ka dhageysanayay دربي كداشيسا سوحدي مركي اي سوكاين ايو خالد وحو يميد awowgiis wuxuuna ku yiri awowey malaga yaabana muddo yar inaad la'aanteedan walaatid waxaan u baahnaa inaan magaalada ka yara dib u bedesho waxyaabo kalena aan soo yara qabsado marka malaga yaabaa inaad intaas la'aantiisiin walaatid oo aad kaliya sii joogtid dabcan muddo yar kadib waan kuu soo laaban doonaa awowgii ayaana ku yiri maxaad beenta u sheegaysaa Khalid ayaa wuxuu yiri been sidee ah awowgii ayaana wuxuu ku yiri waan ogahay waxaad rabtaa inaad gashid godkii aan xalay ku sheegay Khalid ayaan isku dayay inuu iska meeriyo sina wuxuu ku yiri waxba isku dayin inaad iska meerisid waan ogahay wax walba oo aad adiga ku fikiraysid horeyna waxyaabahaas ugu fikiray aabaha Khalid ayaana ku yiri awowgiis awowey aabane godkan wax miyuu ku ogaa awowgii ayaana ku yiri kaligiis xitaa ma uusan ahayn aasaya iyo hooyada labadooda ayaana godkaas galay waliba iyagoo isla socdaan waxayna ii sheegeen in sidaadoo kaleeto kaliya dhowr maalmood ay soo joogi doonaan kadibna ay soo laaban doonaan balse maalmihii waxay isku bedeleen isbuucyadiina waxay isku bedeleen bilooyinkiina waxay isku bedeleen sanado ilaa haddana ma aysan soo laabanin iyaka awowgii ayaana ku yiri waxaad moodaa inaad gabadhaas darteed aad u tagaysid meeshaas balse ma ahan waxaa jirto sabab kaleeto oo ah in faraceenuba ay yihiin dad jecel in ay wax cusub soo ogaadaan aniga ayaa sameeyey aabaha ayaa sameeyey adigana waad rabtaa iyo wiilkaygiyo markii aad go'aansatid inaad gashid godkaas iisoo sheeg waxaa jiro hal nin oo aan aqaano oo si fiican u yaqaano godkaas iyo wax walba oo ku saabsan Khalid xilligaas waa soo baxay waxaana soo aaday meeshii ay ku kulmi jireen gabadhii ay saaxiibada ahaayeen markii uu yimid ayayna kulmeen gabadhii waxayna markaas u sheegtay in aabaheed uu isbedelay markaan uu rabo inuu nin ku daro Khalid ayaa aad u naxay wajigiisuna isbedelay wuxuuna markiiba maskaxdiisa Khalid ugu sheegay in Muna aabaheed uu cid walba rabo laakiin uusan isagu rabin kaliya inuu Muna u diidanaa Khalid balse uu dadka kale u ogol yahay Khalidna meeshaas wuxuu ku dareemay murugo iyo xanaaq martii ayna labadoodii Muna iyo Khalid ku kala dhaqaaqeen Khalid wuxuu markaas soo aaday dhankii iyo guriga isagoo maskaxdiisa aad ugu dhex guuxayaan laba shay shayga koowaad ee ah Muna aabaheed oo arrin la yaab la sameeyay iyo shayga labaad oo ah gelista godkaas wuxuuna xilligaas ku fikiray ama go'aansaday in ahaanba inuu galo godkaas